xaflad siyaasar loo soo agaasimay lagu taageerayo ra'iisul wasaaraha cusub ee Soomaaliya iyo guud ahaan isbedelada ka dhacaya dalka Soomaaliya ayaa waxa ay xalay ka dhacday deegaanka ay Soomaalidu u badan tahay Houston ee magaalada Port Elizabeth ee dalka Koonfur Afrika. xafladani oo heetii ugu horeysay lagu taageerayo ra'iisul wasaaraha cusub ee Soomaaliya ayaa waxaa soo camiray bulshada qaybaheeda kala duwan kuwaasi oo si weyn u buuxraafiyay hoolkii isla markaana muujiyay sida ay ugu faraxsan yihiin isbedelada xagga alle ka socda ee ka dhacaya dalkeena Soomaaliya. xafladani ayaa lagu soo bandhigay riwaayado ka tarjumaya tacadiyada loo geysto qaxootiga Soomaalida Koonfur Afrika iyo isbedelada rasmiga ah ee ka dhacaya magaalada Muqdisho. haddaba waa kuwan qaar ka mid ah qabanqaabiyaasha xafladda oo ka hadlaya dareenkooda ku aadan nabadda u ifaysa Soomaaliya. anigoo xabsi xuseen buul cali lidhaho oo qabqaamiyahan xalfadan oon ku soo dhaweynayno inaan ku faraxsana waddankaanaga iyo dalkaanaga iyo dadkaanaga iyo diintaanaga aan ku faraxsana waxa ay dadka Soomaaliyeed ay sameynayaan. waxaan ku faraxsanahay ra'iisul wasaaraha wuxuu noo sameynayo. waxaan ku faraxsanahay madaxweynaha waddanka dalkaanaga ka dhacay. waxaan kaloo ku faraxsanahay meel walba Soomaali ee qurbo ay joogto waxay jecel yihiin haddii la dhaw waddankiina dawlad ka dhacday meel walba inay xalfad ku dhigtaan. xafladaas oo taageero buuxdo aad ugu taageerayno dalka Soomaaliya nabadda ka dhacday iyo ra'iisul wasaaraha cusub ee Soomaaliya Cabdi Faarax Shirdoon Saacid. waxaan ka codsanaynaa macnaha dalka Soomaaliya inaan maaragta taageerada aan hayno waxay tahay macnaha dalka Soomaaliya inaan ka codsano inay dib noo celiyaan waddankeena ku noqono waayo hadda waxaan aad sida kale mahad ugu celinayaa dadka dalka Soomaaliya cagaha u dhigay ee ka sii horeeyay nimanka hadda madaxda waddanka hadda madaxda ka ah. waxaan halkan hambali uga dirayaa ra'iisul wasaaraha madaxweynaha gudoomiyaha baarlamaanka. waxaan ku qanacsanahay xalfadda ka dhacaysa maanta ugu dhiganaa xalfadan waxa waaye oo u soo qaban qaabinay waddankeena anaka ma joogno waddankeena waddan qurbaan ku noolnahay waddankeena cabaar baa moognahay dhalinyarana ayadoo waddankii rafaad iyo dhibaato ka dhacayo baan la soo kulanay kuma barbaarin waddankii oo dawlad leh. waxaan joognaa hadda waddan qurbo oo islaameed oo shisheeye oo dawlad leh. bismillaahi magacaygu waa Kayf Axmed Cabdi. ilaahay baa mahad u sugnaatay xalfadan oo aan u diyaarinay waddanka Soomaaliya dawladda cusub oo ka dhalatay. ilaahay baa mahad u sugnaatay maadaama waddankeena ay dawlad nooga dhalatay aad ay baan ugu farxaynaa arrintaas ayada macnaheedu dhibaato xun baan ku qabnaa qurbada waddankeena hooyo inay nabad nooga dhalato oo waddankeena aan ku noqono waan ku faraxsanahay. si kastaba ha ahaatee xafladani oo lagu taageerayo ra'iisul wasaaraha cusub ee Soomaaliya ayaa noqonaysa tii ugu horeysay ee lagu dhigo guud ahaan dalka Koonfur Afrika iyadoo xafladani ay ka dhacday magaalada Port Elizabeth ee gobolka Eastern Cape ee dalka Koonfur Afrika. maxamed deeq musan nuur deeq darajo Universal TV Port Elizabeth.